بسم الله الرحمن الرحيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قفك مؤمنك ذنبك ير إيا كوين إيا كوكستبينك التوبة كينويا. قفك مؤمنك وين التوبة لازمه. نبي محمد عليه الصلاة والسلام وإلهي خلقك كوكا دورتيا يا حليه مالنتي إن تضباطا شير كبدا أيان إلهي سبحانه وتعالى التوبة كينا وحكى له أبا هني مركز مكو قفك الذنوب تكا توبة كينا إنو لي ماده أسبابها كان سنية إنو خير كاللازمه وأنا التوبة دادو تذبذب أنا كل أنا دب النقطة حتى هذا دب النقطة طيرها شكني صار نقط إلهي وغفور رحيم قابل التوب شديد العقاب غافر الذنب وقابل التوب. غافر الذنب ويا وقفك هدو إيمان كل انتو آخرة وتحت المشيئة إذن إلهي وغافر الذنب ودافك الذنب هدو توبت كانين وقابل التوب وتوبت على واقع أقبلها هديك لنا نار تعلقوا ما يديها هدي أنا قال لي ما كوني مني نار تو ما لقى طاهرين أيوه أسك جدا بيجو كجتكي مركا أنا توبت أسك جسك ما يديد يانا بنار أسك ما يديد متبعشوه أحبان قفك مؤمن كينو كده دالو إنه ما يدو أسك جدا بيجو أسك ما يدو توبت وإلهي سبحانه وتعالى وتوبت كذا سببها كجرجارة ضدك توبتنا وحكمي كو إخلاصك كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. نبي يوسف مرقى قال لك ورمي يا إلهي تلمامين حمها يفحشاء وحاصلنا لك وعيه وحلقوا عليين ويهي قدامها إلهي مخلصين تعمل الله دورتي إخلاص مركب حكم يبيع المضي هذا وحوناك يتوبة قفك وجرجارة وحكم يبيع المضي هذا توبة قفك مركو كان وحخيرنا كهية المجاهدة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إن الدداشد وهذا خيرك كدداشد وحكم إذا وحيابا قفك مؤمن كتوبة وقرقارة إنه رجد صار له قصر الأمل هذا سنة وتسين ولا أنت ولد اللي يرى توبة ما حدي هذا عرض كبا ملك الموت وقطع وما باه أنا مركين الدق قاعد الدير سيد رادت قرير ميسيد وقت نفتو كابحيس تكلم معصيد وهداي بضطه معصبة عقوبة وكانتا معصيدة هذه بالغوصي عقابة يا متكالي سيدا وقيد وحفي عن قفك مؤمنك سيد النبي عليه الصلاة والسلام دريدا كن نقو كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل متكتلابا يه جد أما مد غريب وماشى صوق غليون هداد نيداد أملك هداد صوقها بس التوبة way badanaysa waxyaabaha toobada kaalmeeya waxa kamid ah aqoonta iyo cilmiga sharciga inuu barto waayo cilmigu waa toosh nolosha lagu ifsado oo shay walba xaqiiqadiisa lagu arko oo cibaadadu khayrka leedahay lagu arko macsidu balaayaday wada tara lagu arko waxa kamid ah waxyaabaha dadka toobada iyo wanaag iyo khayrka ugu gargaara inuu qofku firaaqada iska ilaaliyo iyo kelinimada baydhada kelinimadu nabigu wuxuu عليه الصلاة والسلام midku kaliga safra waa shaydaan labadana waa shaydaamo saddexduna waa safar balay yani shaydaanku inta kali tahay waa kugu lamaayay aad ku la jooga waxa lamida inta aad firaaqa iska tahay qofka muuminkii inaanu firaaqa noqon baa fiican cibaado ku mashquul wax barasho ku mashquul xoogsi ku mashquul waqtigaaga isticmaal waxay keensanaysaa inaad macaasida ka fogaato laakiin dhalinyaradu haddaad qol intaad iska xidhato TV-ga daawato waad wareeraysaa sidaa ogaad culimmadu waxay dhahdeen waxyaabaha qofka macsidana ka durkiya toobadana u dhoweeya waxaa ka mid ah albucdu can ilmuhiiraat waxyaabaha qofka hamigiisa kiciya inuu ka durko jaraa'id TV waxyaabahan xunxune quranka faafiyo dhan waxaa ka mid ah waayo ibn aljawsi baa laga sheegaya inuu lahaa من قارب الفتنة
bacudat canhu salaam ninka balaayada u dhowaadiya meesha imtixaanka nabadgelya kaa way ka dheeraatay buu leeyahy haddaad mushkilaadka u durugto waa dhib waxaa ka mida toobadda waxaa kuu wanaajiya dadka khayrka qaba inaad raacdo kuwa sharka qaba iskaga hadhi arrimaha cidhibtooda inta badan inaad ka fakartid iyo inaad in badan ku dadaashid inaad barido ilaahay weydiisato inuu toobadda ku waafajiyo ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أخوتي في العقيدة waxaan ku soo gabagabaynayaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam caaisha markii beenta laga sheegay layidhi nin bay raacdiye waa kan iyo waa sinaysataye waxa kan ayuu intuu yimi buu xadiidkii bukhaari iyo muslimba wuxuu ku yidhi wain kunti almamti bidanbin faاstakfir illaah nahooy haddii aad wax dembiya taabatay buu nebigu ku yidhi ilaahay inuu toobadkeen ilaahay subxaana wa tacaala u toobadkeen qofka mu'minkii markaa wax kasta oo ka dhaca waa inuu toobadda laasima toobaddaasi waxay keensanaysaa waynu u baahannay inay ummaddoo dhammi toobad keento oo laga toobad keeno xumo dhammaantii laga toobad keeno shar dhammaantii ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa sifada dadka mu'miniinta ee muttaqiintii inay tahay waladiina idaa facaluu faaxishatan dalamuu anfusahum kuwa hadday xumo sameeyaan ama naftooda dulmiyaan ilaahay subxaana wa tacaala u toobad keena baa layidhi waxaynu u baahanay nolosheennoo dhammi toobad bay u baahantay ka umma ayaynu u baahanay inuu toobad keeno ka afraad iyo ka ashkhaas ka caa'ila inaynu toobad keeno toobadduna waxay keensanaysaa inaynu ilaahay jidkiisa u noqonno subxaana wa tacaala khayrkana raacno intaasaan ku soo koobaya wallahu aclamu billahi towfiiq wasalaamu calaykum